taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Maxamed Tahliil Biixi agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Saciid iyo saraakiil ka kala tirsan militariga Soomaaliya kuwa Turkiga ayaa maanta garoonka Aadan Cadde waxa ay ku soo dhaweeyeen cutubyo ka tirsan ciidamada gorgor ee kumaandooska qaranka kuwaas oo tababar muddo socday ku soo qaatay dalka aan walaalaha nahay Turkiga cutubyadan ayaa si gaar ah uga tirsan ururka 9aad ee gorgor waxaana tababar dhowr bil socday ku soo qaateen dalka Turkiga waxaana lagu wadaa inay ciidamadan ka qayb noqdaan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab kaasoo haatan inta badan dalka ka socda taliyaha ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Maxamed Tahliil Biixi ayaa ciidankan iyo kuwa kale xoogga dalka ka tirsan uga digay in qof shacab ah sabab la'aan aysan xabad ku ridi karin haddii ay dhacdadana waxa uu sheegay in askarigii falkaasi geystaa cadaalad la horkeeni doono fursadan ka faa'iideysanaya habeenadan waxa dhacay amni darro aad u foolxun oo ka dhacaysa magaalada Muqdisho dad shacab ah ama dad dhalinyaro ah oo wax bartay Ilaahay ha u naxariisto waalidkoodna sabir Allah ka siiyo in la yiraahdo waxaa dilay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed waa dhacdo aad u foolxun waxaan rabaa halkaan in uga faa'iideysto dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel joogo ama ha noqdo mid istaaf ah oo madax la socda ama ha noqdo mid ciidan ah oo aan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan qofkii qof shacab ah xabad ku rida wallaahi tiirka maxkamadan geynayna meel ka sokayso oo aan geynaynaa ma jirto dadkii aad u soo tababarateen oo amnigooda aad u dhaarateen in khalkhal la geliyo oo si sahlan xabada loogu furana xaq ma ahan mana yeelayno kuwa hadda la soo qabtayna sharcigaanu horgeynaynaa waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed amni darrada inaysan qayb ka noqon ayagaa qayb ka ah sababtu maxay tahay waxaan hayaa intaas oo kiis askar dishay dad shacab ah ama askar ayagu dhexdooda iska dishay oo inta la qaatay markaanu maxkamaddii horgeynay labadii qabiilo inta heshiiyeen mag la kala qaatay kabacdina uu kugu soo laabanayo qofkii shalay aad maxkamadda geysay oo laleeyahay mag baa la kala qaatay arrintaasi waxay qayb ka noqonaysaa amni darrada jirta taliyaha ayaa sidoo kale ciidankan kula dardaarmay in laba jibaaraan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ayna soo ciribtiraan kumanaan ka tirsan ciidanka gaarka ah ee gorgor qaybna ka ah dagaalka argagixisada ka dhanka ah ee dalka ka socda ayaa sidaan oo kale hore tababaro ugu soo qaatay dalka Turkiga dawladda Turkiga ayaa kaalin ka qaadata tababarista ciidamada militariga Soomaaliya gaar ahaan ciidanka gumaandooska ee gorgor iyo ciidanka booliiska gaarka ah ee Haramcad waxaana maalmaha soo socda iyagana lagu wadaa in ciidamo badan oo soo qaatay tababar casri ah dalka soo gaaraan